wadamada caalamka ayaa cambaariyay weerarkii argagixisay ee ka dhacay magaalada Istanbul oo ay ku tilmaameen in uu ahaa weerar aad u xun kaasoo la sheegay in goorsi loo xiray gabadh lagu magacaabo Ilham al-Bashir oo Syria u dhalatay. Si kastaba ha noqotee, hogaamiyaal badan oo caalamka ayaa waxa ay dalka Turkiga uga tacsiyeen geerida ku timi. Ra'iisul wasaaraha dalka Sweden ayaa kamid ah Ulf Kristersson oo kamid ah hogaamiyaasha sida weyn uga shoogay sida uu hadalka u dhigay kaasoo barihi ugu dambeeyay dalkaasi garka ku haya inay u fasaxaan galista gaashaanbuurta NATO. madaxweynaha Azerbaijan Ilham Aliyev ayaa sidoo kale kamid ah hogaamiyaasha arrintaasi qaybta ka noqday iyo sidoo kale mas'uuliyiin kale oo uu kamid yahay madaxweynaha dalka Russia Vladimir Putin oo dhamaantood soo diray tacsi. Ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha Soomaaliya iyaguna labadooduba goorsi horeysay waxa ay direen tacsi iyo sidoo kale inay cambaareenayaan weerarka. sidoo kalena madaxweynaha dalka Hungary Viktor Orban ayaa sheegay in uu la shoogay lana anfariiray weerarka dhibaatada weyn u geystay dalka Turkiga. madaxa guud ee gaashaanbuurta NATO madaxda reer Yurub ee uu kamid yahay Joseph Borrell, madaxweynaha Ursula von der Leyen, Charles Michel, madaxweynaha dalkaasi Jarmalka Frank Walter Steinmeier, ra'iisul wasaaraha dalka Talyaaniga Giorgia Meloni, ogayaasha kale ee uu kamid yahay kuwa jaamacadda Carabta, madaxweynayaasha iyo wasiirada arrimaha dibadda dalka Pakistan, Jordan, dalka Masar, Saudi Arabia, Jarmalka, India, Bosnia Herzegovina iyo Greece ayaa sidoo kale dalkaasi taxsiil gaaray. dowladda dalka Turkiga ayaa sabab dheer loo soo galay si wadan walba uu muujiyo cilaaqaadka uu ka raadinayo kadib markii wadankaasi isballaaratay. madaxweynaha Senegal oo sidoo kalena ah gudoomiyaha midowga African Union ee Afrika, Macky Sall ayaa isaguna ku tilmaamay in uu la anfariiray kana argagaxay in walaalaha halkaasi ku dhaqanay dhibaatadaasi gaadhay, isagoo sheegay in ay heliyohooba diyaar u leeyihiin. madaxweynaha dalka Burundi ayaa kamid ah madaxweynayaasha diray Nicolas Evariste Ndayishimiye. sidoo kale madaxda kale ee wadankaasi la soo hadashay waxa kamid ah madaxweynaha dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, madaxweynaha dalka Kazakhstan Qasim Jomart Tokayev iyo mas'uuliyiin kale oo Trapela oo ay kamid yihiin madaxda dalka Dominican Republic iyo wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka waaweyn oo kamid yahay Mareykanka, Armenia iyo Portugal iyo dhammaan wadamada aan la tiri karin oo dhamaantood dalka Turkiga safar dheer soo galay inay taasi u diraan. wadankuna markuu inta badan awoodda inta laga helo waa iska sidaas in ay maartay dabcan u soo tacsiyaan wadamada oo dhan. muslimiinta sanadkan cusub ee ku soo biiray xubnaha aqalada ayaa waxa ay u muuqdaan kuwa sii badanaya. gabdho iyo wiilal muslimiin ah oo badankooda ay Soomaali yihiin ayaa sanadkan taariikh cusub ka dhigay doorashadii xilligan dhexe, iyada oo doorashada heer gobol ay ku soo biireen ay badatay. marka laga soo bilaabo labada dhalinyarada ee Soomaaliyeed ee gobolka Ohio ku kala guuleystay Ismaaciil Maxamed iyo Muniira Cabdullaahi, waxaa kaloo jira in gabdho kale Soomaaliyeed iyaguna ay gobolada Maine ay ka soo galeen sida Maana Cabdi iyo Deeqa Dhalac, waxaana ay u sii muuqataa in ay sii wataan hoggaanka la yaab kale ee dadkaasi lagu doortay. dhanka kale muslimiin fara badan ayaa iyaguna ku guuleystay doorashada xilligan iyada oo ay soo bixeen magacyadii ugu badnaa gobolka Illinois. waxaa kamid ah Nabila Sayid, sidoo kale Cabdinaasir Rashiid isaguna muslim oo ku soo baxay, halka Nabila Islam iyaduna ay gobolka Georgia ku guuleysatay. Seene Maxamedna waxay aqalka sanadka daftir gobolka Minnesota waana Soomaaliya iyadoo, halka Ruwa Roman oo iyaduna ay gobolka Georgia State iyaduna ay ku guuleysatay. Salman Buhaji ayaa isaguna gobolka Texas ka soo baxay ee aqalka. arrintan ayaa weeg in dadka muslimiinta ay ku sii badanayaan xilalka waaweyn ee wadanka ay ka hayaan, iyada oo ay u muuqato in marmar ka dambaysa ay soo badanayaan. waxaa lagu tilmaamay inay tani tahay markii ugu badneed ee aqalka dad muslimiina ay ku guuleystaan. waxaa kaloo la sheegay marka la isku daro dadka muslimiinta ay guuleystay ee dadka la doortay ah ee heerarka kala duwan ilaa iyo 20 ay kor dhaafayaan. dowladda dalka Mareykanka ayaa barihi ugu dambeeyay oo dhan waxa ay sheegaysay inay tani tahay mid muujinaysa isdhexgalka iyo sidoo kale sida dadka Mareykanku ay dulqaadka u sii sameynayaan. si kastaba ha noqotee, hay'adda CARE ee cilaaqaadka muslimiinta qaabilsan ayaa waxay sheegtay in ay u aragto in arrintan ay tahay guul u soo hoyatay, iyagoo sheegay in ku dhawaad biireen 17 xubnood oo muslimiina ay ku soo biireen jagooyinka dalka Mareykanka ee kala duwan. halkaad nagala socotaan wararkii wacala dhinaca diblomaasiyadda dunida oo dhan, daawashana qiimaha leh waa Trapelka wararka wagaanka gan dunida oo dhan ee Maxamed bin Salman bin Abdulaziz ayaa isaguna waxa uu u duuleystay markaana uu gaaray magaalada Bali ee quruxda badan ee ku shirayaan hogaamiyaasha dalalka 20 G20 loo yaqaano ee ugu dhaqaalaha badan dunida. Maxamed bin Salman oo dhawaan ka baaqday shirkii horaantii bishan ku qabsoomay magaalada Algiers
xarunta dalka Algeria madaxda jaamacadda Carabta ayaa u muuqday in uu haatan uu ka qayb galayo shirkaasi sida lagu qoray war qoraal oo ka soo baxay wakaaladda wararka ee dalka Sacuudiga ee loo yaqaano The Saudi Press Agency SPA waxay sheegtay in safarka bin Salman uu muujinayo in ay doonayeen inuu halkaasi uga qayb galo kulamada heerka sare ee halkaasi ka dhacaya dhanka kalena wadamada reer galbeedka ayaa sii wada inay cadaadiyaan dalka Qatar oo ay qoori la yihiin inuu ku guuleystay martigelinta koobka hadallada gefka ah kuwa sida iyo sidoo kale kuwa cayda ee bahtilka Qatar ku sii socda ayaa u muuqda mid aan istaagaynin xulka dalka Netherlands ama Holland hadba u taqaanid ayaa ku dhawaaqay in marka ay ciyaartu dhamaato ay dhammaan ciyaartooygu iibi doonaan waxay ugu yeedheen maaliyadooda isla markaana ay sii doonaan lacagta ka dhalata ama ay ka sameeyaan ay yiraahdeen dadka shaqaalaha ah ee wadankaasi ku silacaya oo sidoo kale loo dhigay waaxda loo yaqaan waaxda iskaashiga ee Dutch Football Association loo soo gaabiyay KNVB ayaa waxa ay u sheegeen wakaalada wararka Reuters inay og yihiin in dad badan ay ku dhibaataysan yihiin wadankaasi kuwaas oo ah ay yiraahdeen dadkii ka shaqeeyay dhismayaasha lagu ciyaarayo oo ay sheegeen inaysan xuquuq helin kabtanka kooxda Dutchka oo leeyahay Virgil van Dijk ayaa waxa uu yiri waxaan ognahay ayuu yiri in aanan qof dadka halkan ka shaqeeyay ee ka dhacayso xafladda aadka u weyn ay yihiin kuwo u soo doontay shaqo iyo camal wadanka Qatar isla markaana ku saxariirsan taa daraadeed anagoo doonayna inaan caawino waxaanu ballan qaadanaa inaanu gadano arintaasi waxay dhiseen hoteelo waxay dhiseen ayuu yiri garoomada ciyaaraha sidoo kale waxay dhiseen ayuu yiri meel kasta iyagoo xaalad aad fool xun oo aad u daran ku jira ayuu sheegay arintan ayaa waxay ka dhantay dawladda dalkaasi Qatar oo dhowr jeer sheegtay inay kordhisay mushaaraadka dadka shaqaalaha iyo xoogsatada iyo sidoo kale xuquuqdooda hase yeeshee wadamo dhowra ayaa waxay u muuqdaan reer Yurub inay wadankaasi ku ciqaabayaan inuu maadaama wadan muslimiin uu yahay sababta uu u noqday waxa loogu yeeray wadan martigeliyay kubadda cagta iyadoo oo madaxweynihii dalka Russia oo isaguna shirka Bali wararkiisan ku noqonaa uu ka baaqday inuu ka qayb galo shirkaasi ayaa la sheegay in wasiirkii halkaasi uu diray isbitaalka loola cararay wasiirkii arrimaha dibadda dalka Russia Sergey Lavrov ayaa waxa ay warar soo baxay ee sheegeen in uu galay isbitaal magaalada Bali ee shirka uu ka dhacay taasoo mar dambe ay beeniyeen qaar ka mid mas'uul aniga iyo wasiirka arrimaha dibadda iyo mas'uuliyiin kale halkan ayaanu joognaa indhahayaguna way furan yihiin sidaa daraadeedna warka sheegaya in cusbitaal la geeyo oo loola cararay waa war beenawaasiin iyo kuwa wararka beenta ay fake newska ka macaasha ay tabiyeen ama huriyeen ama bumbuniyeen ayay ku qortay barteeda Telegramka afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi ku dhigada Maria Zakharova waxa ay sheegtay in ay gabi ahaan bay warkaasi u been yahay iyadoo rabta inay si kala cadayso ay goor dambe waxay haddana soo duubtay muuqaal iyada oo ay la fadhido Mr. waxa ay kadibna ay tiri muddo 10 sanadood waxay balahaayeen madaxweynaha Ruushka isaguna maalin walba nafta haday ka dhacaysa iyo waa gariyo doona hadeertana inay yiraahdaan ninka baa loola caray waa been intan ayaa soo baxaysa iyadoo la sheegay in madaxweynaha dalka Russia uu ka shakiyay shirkaasi wararna ay sheegayaan in uusan doonaynin inuu ka qayb galo shir ay imaanayaan raggii ay dunida uga cadowsanaayeen kamid yahay madaxweynaha dalka Mareykanka iyo rag kale oo reer Yurub oo aysan saarki karin gaar ahaan xilligan xasaasiga ah ee dagaalka adag lagu jiro dhanka kalena dawladda qiimaha leh wararka waxaa dhinaca diblomaasiyadda dunida iyadoo oo dawladda Soomaaliya ay sheegtay inay raan qaaday dagaal baan way doonaysaa inay ku gasho kuna cabaacisato kooxaha wax qarbuda ayaa la sheegay in safaaradihii dalalka waaweyn badankoodii ay ka qaxeen xarunta xalane ee ku xareysnaayeen iyadoo la sheegay inay u feeraariyeen dawladda iyo waxa lagu yeeray ammaan darrada sii socota ee ka sii socota gudaha dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada xarunta Xamar safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Danjire Larry Andre iyo safiirka xigeenka Mareykanka ee dalka Kenya oo iyagu shirka ay shalay soo jira ugu qabtay xarunta safaaradda Mareykanka ee ku leedahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa sheegay in lacag 10 milyan oo dollar ay dul dhigeen xubno sarsare oo ka tirsan ururka shabaab waxaana arrintan ay muujisay markii ugu horeysay in hogaamiyaal kale oo dhowr iyaguna la sheegay in ay safiiradooda ka baxeen magaalada Muqdisho oo ay ka mid yihiin kuwa Norway iyo UK haweeneydu iyaduna u ahayd UK ra'iisul wasaaraha oo iyadoo mar walba la arki jiray iyadoo qof Soomaaliya iyo siyaasiyiinta Soomaaliyeed maalin walba la sawiran ayaa ka mid ah hogaamiyaasha iyaguna u guuray dhinaca wadanka Kenya ama se ugu yaraan halka ku harta baxaya waxay labada hogaamiye ama labada sarkaal ee safaaradaha Mareykanka ee uu ku kala yahay Kenya Nairobi iyo sidoo kale Muqdisho Soomaaliya ay sheegeen in lacagtan ay noqon doonto kuwa la dul saaro ay yiraahdeen madaxa xubno ka tirsan shabaab waxaana kamid ah hogaamiyaha ugu sareeya ururkaasi Axmed Diiriye oo loo yaqaan Abu Ubayd Mahad Kaaratay iyo Jihaad Sarwaan Mustafa safiirka safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa sidoo kale wuxuu ku bogaadiyay shacabka iyo dawladda Soomaaliyeed kacdoonka ka dhanka shabaab oo ka socda inta badan gobolada dalka Soomaaliya ee al-shabaab looga qabsaday dhowr deegaan
degaan ma haysaa xogta diiriye ayuu yidhi karatay ama mustafa fadlan ka qayb qaado qorshaha lagu raadinayo helista abaalmarintan dhan 10 milyan ee dollar haddii ay suuragal tahay ayaa lagu yiri war qoraal oo markii dambana lagu qoray afka Soomaaliga oo lagu qoray waaxda cadaaladda ee Afrika u qaabilsan Mareykanka hase yeeshee dad badan oo Soomaaliyeed ayaa qaarkood hadallo kala duwan ku qoray mid ka mid ah dadka hadalkiisa ka dhiibtay ayaa yidhi hadda ka hor ayaan xog idii sheegay lacag baad ii ballan qaadeen waana ii diideen lacagta sidee idiigsiya xog kale idinku aan lacagii hore na siin ayuu yiri qof markaas magaciisa oo aan saddexnayn meesha uu ku qoran yahay kaasoo kamid ah dadkii ka falceliyay hadalka Mareykanka xubnahan safaaradaha kala duwan ee la sheegay inay guureen ayaa markii dambe waxay soo qoreen lambaro la wacayo haddii xogta la helo kuwaasoo muujinaya ayaa la yidhi in ay yihiin kuwa lala soo xiriirayo sida hadalka loo dhigay si kastaba ha noqotee macadda Mareykanku inuu bixiyo lacagahaasi hadda ka horna waxaa la arkay nin waraysi siiyey oo ahaa ninkii Anwar al-Culaaqi ninkii loo jiray jihaadiga ahaa ee lagu dilay dalka Yemen oo waraysi bixiyay oo Sweden ahaa oo sheegay inuu isagu ahaa ninka loo adeegsaday in uu dilo oo ka cabanaya in dawladda dalka Mareykanka ay lacagta ay u ballan qaaday kaga baxday gabi ahaanba markii uu xogta keenay wararka waxaana dhinaca dunaasiyada dunida oo dhan hogaan ka gaan haatan aan fiiriyo wararka kale ee dalka isku tagay Imaaraadka Carabta sarkaalkooda arrimaha dibadda kala taliya madaxweynaha dalkaasi Anwar Qarqaash horena wasiir dowladda wasaaradda arrimaha dibadda uu ahaa jiray ahaana ninkii sida rasmiga ah u kala iibiyay dekedaha Boosaaso iyo Berbera una dilaalay waagii la iibsanayay oo Soomaalidu aad u taqaano markii dawladda Soomaaliya ee hore ay ka hadashay inay dekeda Berbera waxba ka ogeyn ahaa ninkii beeniyay ee yiri dawladii hore ee Xasan Sheekh Maxamuud ayaa noo saxeexday oo ninkaas Soomaalidu aad u taqaan Anwar Maxamed Qarqaash Somaliland sheegay xitaa inaysan kaligeed saxiixin ayaa haatan waxa uu ka hadlay warbixintii soo baxday ee ku aadaneed in dawladda isku tagay Imaaraadka Carabtu ay faragelin ku samaysay arrimaha siyaasadda ee dalkaasi Mareykanka isagoo sheegay in uu ka codsanayo dawladda Mareykanku inaysan shuruudaha waaweyn ee labada dal iyo heshiisyada ka dhaxeeya dhinaca ammaanka aysan ka bixin Mareykanku waxa uu ammaanka ka caawiyaa dalalka Sacuudiga isku tagay Imaaraadka Carabta iyo Qatar iyo wadamo kale oo khaliijka ah isagoo oo dabxeer u noqday mararka qaarkood ayaa laga baqayaa in dawladda madaxweyne Joe Biden hadeerto maadaama ay ka soo jeesatay arrintii doorashada inay wadamada Carabta ay ka good doonto ayaa la yiri sahayda dhinaca warwareynta iyo sidoo kale hubka Mr. Qarqaash ayaa sheegay in Mareykanka iyo wadankiisu si kasta isugu xumaadaan abid uusan Mareykanku ka dhaqaaqin wadamada Mr. Qarqaash oo isagu sarkaal sare arrimaha diblomaasiyadda kala taliya madaxweynaha hadeerta wuxuu yiri istiraatiijiyadeena guud waxa weeye arrimaha cilaaqaadka heshiiska in ay ahaadaan kuwo weligood ilaa sidooda sii ahaada markay noqoto Mareykanka si kasta oo noqotay waxa uu sheegay inay jiraan siyaabo kale oo lagu heshiin karo gaar ahaan arrimaha la isla diidan yahay Mareykanku wuxuu ka cadhaysan yahay waxa ay wadamadaasi ka yeeleen shidaalkii oo ay yareeyeen taasoo qaaliyeysay markii dambe iyo in uu aad iyo aad uga xumaaday qadiyada ay ku dhaqaaqeen ee arrinta noocaas ku saabsan madaxweynaha Suudaan ee ciidanka militariga asaguna ku haysta awood oo kamid ah xubnaha gacansaarka la Yuhuudda Imaaraadku dilaalay ayaa isaguna waxa uu warqad iyo dhambaal hambalyo ah oo si la yaab leh loo qoray uu u soo diray hogaamiyaha Yuhuudda dib loo doortay kan ninka markaasi aaminsan gabi ahaanba in wadamada Carabta oo dhan ama jasiiradda Carabta oo dhan ay leeyihiin dadka reer Banu Israa'iil ayaa waxa uu ku tilmaamay in ay tahay guul taariikhi ah dib doorashadiisa General Abdul Fattah al-Burhani oo kamid ah ragga markaasi 25 October sanadkii hore xooga ku qabsaday wadankaasi dhiiga badanna ku daadiyay ayaa waxa uu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay dib doorashada waxa uu sheegay in wadamada isku tagay Imaaraadka Carabta Bahrain Morocco oo iyagu kamid ah wadamada wadankiisa heshiiska la galay ay ahaayeen dhamaan kuwo si buuxda u fahmay nolosha iyo sidoo kale inay la sii shaqeeyaan wadamada ay ka mid tahay Israa'iil oo sadalka u dhigay wararka waxaana dhinaca dunaasiyada dunida dhan madaxweynaha hore ee dalka Mareykanka ayaa isaguna waxa uu dhaleecayn kala kulmay waaxda cadaaladda ee dalka Mareykanka oo ku tilmaantay in uu doonayo inuu ciyaarta bisada iyo jiirka la ciyaaro waaxda cadaaladda ee uu doonaysa inay xogtiisa banaanka keento gaar ahaan dambiyada waaweyn oo ka galay yiraahdeen shuruucda ilaalinta xogta qaranka Mareykanka kadib markii uu qaatay waxyaalaha macluumaadka halista loo yaqaano oo ku jirto koodharka iyo waliba xogta gaarka ah ee hubka nukliyeerka waxay sheegeen in aysan dacwadiisa u dacweynayo dadka ay u egtay in soo taagay cadaaladda si aadaraadeen aysan cidna u joojin doonin oo soo hadalka u dhigay dalka Isbaaniya ayaa kamid ah wadamadii iyaguna ugu dambeeyay reer Yuruba ay mudaharaadaan dadkiisu kadib markii la sheegay in darawaliinta baabuurta waaweyn ay ka mudaharaadeen nolosha ku sii adkaatay iyo xaaladda ku sii xumaatay iyadoo ay soo socoto maalinta loo yaqaano the Black Friday oo wadamada dalalka Kirishtaanka iyo reer galbeedka looga dabaaldego waxaana ay sheegeen in
in dadkan darawaliinta inaysan yeelaynin isla markaana simici doonin habdhaqanka dowladda iyo weliba waxa ugu yeedheen nolosha sii xumaanaysa iyagoo dalbanaya in dhaqaalaha loo kordhiyo waxayna sheegeen in ayagaba ay aada ugu sii xumaatay oo ay ka badan tahay waxa la siiyo waxa isticmaalaan kumanaan qof ayaa la arkay iyagoo isugu soo baxay isla markaana dhigay baabuurtoodii ku baakin gareeyay meelaha baabuurta la dhigto wadamada reer Yurub iyo wadamada galbeedka oo dhan iyo bariga ugu dambeeyay waxaa ka taagan qalalaasyo xoogan oo dhinaca shaqooyinka iyo weliba mudaharaado waaweyn oo ay dhigayaan dadka loo yaqaano kuwa ururada isku xiran abaaro aad u daran ayaa gobolka Soomaalida laga soo sheegayay ee dhinaca xuduudda Kenya ee ku yaala dhulka dabcan Kenya inaga jira ee Soomaaliyeed gobolka waqooyi bari ayaa waxaa la sheegay in dad badan ay ka hayaameen isla markaana ay gundada dhigeen wadamada Soomaaliya iyo Ethiopia iyagoo raadinaya roob mid ka mid ah dadka ka shaqeeya programka la yiraahdo isku xidhaha programka for action 8 oo leeyahay Yusuf Cabdi ayaa warbaahinta maxalliga ee waddanka Kenya u sheegay inuu arkay tuulo dhan oo ay ku hareen haweenkii kaliya oo dhammaan ay ka hayaameen raggii si ay u daaqgeeyaan ama u daajiyaan bal xoolaha oo ay ka dhamaadeen daaqi sidaas waxay ku sheegeen inay ku arkeen tuulooyin dhowr ah oo kamid ah gobolka ay kamid tahay duleedka magaalada Garissa iyo sidoo kale qaybo kamid ah Balay Turkana waxaa la sheegay in ay dhulkaas oo dhan ay u muuqato kuwo dhibaato aad u xoogan ay ka jirto gaar ahaan gobolka magaalada caasimadda ee weyn ee la yiraahdo Garissa xubno gabdha ah oo caruur yar haysta ayaa sheegay inay la daaladhacayaan nolosha caruurta maadaama xoolihii caanaha looga lisi jiray sidoo kale marar badan laga heli jiray waxyaalo ay ka mid tahay daruuriyaadka kale sida hilibka ama cadka iyo caanaha labadiiba ay ka fogaadeen raggiina ay soo noqon waayeen